daawadayaasheena meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada muuqaal cusub waxay noo maraysay waxaan aadi jirnay meelaha lagu dalxiiso oo ay wada aadaan lamaanaha isjecel halka ayaan farxad ku soo qaadan jirnay si walba aan farxad u soo qaadanay Kariina waxay ahayd gabar dulqaad badan waayo waxaan la hasaabi jiray habla kale laakiin ayada waxay dhigi jirtay sidaan ma aha mid wanaagsan waana kadib waan iska dhaafay waxaan ku ekaaday ayada jecelkeena wuxuu noqday mid ku baaxay dunida dadkuna waxay noqdeen kuwa ka hadlaya xiriirkeena si kastaba ahaatee maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa soo gaaray hadal ah in Kariina xiriir hoose la bilowday aktarka caanka ah Seif Cali Qaan laakiin arrinka ma rumaysan waxaan islaa dadka ayaa wada hadalka mar kale ayuu soo gaaray markaan adkeysan waayay baan weydiiyay waxa lagu yiri waxaasi waxba kama jiraan ee aniga u kalsooni qab waxaan ku dhahay hayaba xilliga ma ahayn jecelkeena mid siin usqaamay wuxuu ahaa mid horay u jiray laakiin horay baa loo yiri wax la qariyo ma qarsoomaan si walba qalbigaaga been loogu qaboojiyo maalin un ayuu dhaawac gaari doonaa kadib ayaan waxaan dareemay xoogaa xiriirku noqonayo mid si laciifaya waxa ay galay walwal iyo cabsi ma garanayo waxaan ugu jawaabo nafsadeeda markii aan waco oo aan israahdo la sheekeyso hadalkii way ii soo gaabin jirtay ma garanayo sababtu waxaan galay fikir joogta mararka qaar waxaan isweydiiyaa sababtan u murugoonayo heer waxaan gaaray markii aan la joogo asxaabtan isku shaqadanahay waxaan ahay qof aad u faraxsan laga dareemayay in uu dhaawac hayo run ahaantii markii aan ka soo tago shaqada oo aan imaado gurigeyga isla markaana aan israado xoogaa yara seexo igama imaanayso markii aan isku qasbo hurdada waxaan ka soo gocaa anigoo ilintii iga qabanayso sababta ma ogi laakiin waxaan dareemayaa dab ka shidan qalbigeyga markaan adkeysan waayay baan u tagay waxaan ku iri walaale sidaan maxaad iigu galaysaa waxa laygu yiri wali waan ku jeclahay wax isbedel ah ma jiro markaa baan ku iri xubbi goormee ku soo laaban doonaa waqtigeennii wacnaa waxa laygu yiri haddaba waan ku soo laaban karnaa markaa sida qalbiga liigu qaboojiyay ayaan ka soo tagay anigoo aad u faraxsan waxaan imaaday gurigeyga waxa la gaaray habeenkii markaa baa wacay waan sheekeysanay markaa sida maalmo u sheekeysanaynay baa waxaa bilaabnay jilinka filimka Fida kaasi oo aan wada jilaynay aniga Kariina Kapoor iyo Fardiye Qaan intuu socday duubista filimka waxaan ahayn dad aad u faraxsan laakiin markuu duubista dhamaaday ayaan wax walba ogaaday markii aan u tago waxaan arkaa ayagoo isla joogo xitaa waqti ay u sheegto qaladkayga way sii weysay waan wacay anigoo u baahan run ahaantii waan raadiyay anigoo aad u xiisa intuba markii aan isku dayay waan heli waayay hadda kuma dhihi karo waxaasi ayay iga tagtay waatan qisadii igu dhacday waana mid markii aan soo xasuusto run ahaantii aad u murugoodo haddaba waxaan kuu sheegayaa weligaaga adigoo qof qaladkiisa u sheegin ha ka tegin waayo aad ay u xanuun badan tahay waxay la mid tahay adigoo saa'id qalbigiisa u dhaawacay waad ku maasan tahay daawashadaada haddii aad ku cusub tahay channelkan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto sidoo kale la wadaagta asxaabtaada laakiin ugu dhiirigeli fikirkaaga qaybta hoose faalada nagu soo gudbi waxay noo tahay dhiirigelin aad weyn magacu waa Maman Cabdilkariin